الله الرحمن الرحيم. وقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. شعبك الصومالية شرفت له سلام قيمة بدن يو قدومه iyadoo la sii ambaqaadayo dagaalka masiiriga ah ee lagula jiro kooxaha argagixisada ah isla markaana la xaqiijinayo rabitaanka shacabka Soomaaliyeed ee ku aadan amni iyo xasilooni. waxaanu maantay si sharaf iyo guul leh u shaacinaynaa in la cirib tiray marinkii uu mudnaa ee cadaaladana la marsiiyey mid ka mid ah horjoogayaasha sare ee kooxda argagixisada al-shabaab kadib howlgal gaar ah oo si xirfad leh loo fuliyey. guushan amni ee muhiimka ah waxay dhabarjab weyn ku tahay kooxda argagixisada oo sanado badan ku howlanaa carqaladaynta amniga dalka, daadinta dhiigga shacabka aan waxba galabsan iyo hakinta dowladnimada iyo curyaaminta dhaqangalka hay-adaha qaranka. waxay sidoo kale caddayn u tahay heerka sare ee diyaargarowga ciidamada qaranka iyo horumarka joogtada ah ee ku yimid awoodda sirdoon ama ay samaysay dowladda Soomaaliya, awoodda sirdoon iyo midda howlgal. annagoo mar kale adkaynayna in howlgalkani uu qayb ka yahay silsilada howlgallo guulaystay oo midho dhal ah oo aan sheegi doonno haddeertan oo hay-adda nabad sugiddu ay intooda badan fulisay. waxaan u xaqiijinaynaa shacabka Soomaaliyeed in dagaalka ka dhanka argagixisada uusan istaagi doonin, isla markaana uu sii socon doono si aan kala joogsi lahayn ilaa si buuxda looga takhalluso cudurkan halista ah iyo afkaartiisa, loo engejiyo ama loo qallajiyo ilihiisa fikir iyo kuwa dhaqaale, isla markaana looga hortago inay mar kale isu soo abaabulaan ama khatar ku noqdaan amniga muwaadiniinta iyo dalka Soomaaliya. hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka NISA oo kaashanaysa saaxiibada caalamka waxay fulisay howlgal qorshaysan oo barakaysan oo guul ku dhammaaday, kaasoo lagu dilay horjooga sare oo ka tirsanaa khawaarijta al-shabaab laguna magacaabi jiray cabdullaahi xasan cabdi cosoble oo magaciisa afgarashadu uu ahaa cabdullaahi wadaad. howlgalkan ayaa ka dhacay deegaanka Kuuya Barrow dabayaaqadii bishan Janawari ee sanadka 2026 ee ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose, xilli horjooguhu ku sugnaa goob uu u maleynayay inuu ku nabadgalayo, halkaasoo lagu beegsaday weerar si gaar ah oo bartilmaameed u ahaa oo isaga lagu beegsanayay. cabdullaahi wadaad wuxuu dhashay sanadkii 1965, 60 jir ayuu ahaa qiyaastii. wuxuu ku dhashay degmada Ruunirgood ee gobolka Shabeellada Dhexe. wuxuu ku biiray kooxda al-shabaab sanadkii 2009 oo isla sanadkaasba uu bilaabay howlgalladiisa argagixiso ee ka dhanka ah shacabka Soomaaliyeed. intii u dhaxaysay sanadkii 2011 ilaa 2017 dadka reer Shabeellada Dhexe si weyn bay u yaqaanaan. cabdullaahi wadaad wuxuu ahaa mas'uulka maktabka zakawaadka lagu magac daray ama maaliyadda ee khawaarijta u qaabilsan Shabeellada Dhexe, isla markaana wuxuu ahaa isku xiraha beelaha deega Shabeellada Dhexe iyo hogaamiyaha kooxda khawaarijta Axmed Diiri. si gaar uu isugu xiri jiray beelahaas odayaashooda iyo waxgalkooda iyo Axmed Diiri ugu qaabilsanaa halkaas. waa argagixiyaha weyn Abu Cubayda la yiraahdo. muddadaas wuxuu si gaar ah ugu caanoqday dhibaataynta shacabka, dhaca xoolahooda, baadda joogtada ah, handadaad iyo dulmi baahsan
oo ku hayay dadkii deegaanadaas intii u dhaxaysay 2017 ilaa 2025 hadda sanadkii la soo dhaafay bartamihiisii horjoogahan wuxuu u xil saarnaa maktabka sakawaadka ee gobolka Banaadir halkaas oo mas'uul uga ahaa ururinta iyo maareynta dhaqaalaha baadda ah isagoo si toos ah ugu lug lahaa dilal loo geystay ganacsato badan qaraxyo goobo ganacsi lagu dumiyay cabsi gelin ganacsato iyo handadaad joogta tacadiyo sababay in ganacsato badan ay dalka ka cararaan tacadiyo sababay in ganacsatadii ay joojiyaan maalgashigii ay ku hayeen magaalada Muqdisho oo ay dalka dibaddiisa u doontaan inay maalgashadaan wuxuu sidoo kale lagu xasuustaa tacadiyadii uu ku hayay gaadiidleyda bangiyada guryaha la dhisayo goobaha ganacsi iyo beeraleyda isagoo sababay khasaaro badan oo isugu jira naf iyo maalba Cabdullaahi Wadaad wuxuu ahaa horjooga khatar weyn ku ahaa nolosha iyo hantida shacabka Soomaaliyeed waxaana lagu tilmaamay dilkiisii ay ku tilmaameen ganacsatada Soomaaliyeed iyo dadkii u dhibi jirayba oo din iyo waran wadnaha uga taagnaa ummadda oo laga fujiyay maadaama uu si bareera u banaystay dilka dhaca caburinta iyo sharaf dilka muwaadiniinta Soomaaliyeed sanadkii 2024 dawladda Soomaaliya waxay horjoogahan ku dartay liiska dambiilayaasha waaweyn ee cunaqabateynta la saaray waxaana dawladdu ay ku guuleysatay inay xayirto ama ay joojiso dhaqdhaqaaqiisa dhaqaale badan oo khawaarijta uu magacooda ku boobay oo ku jiray bangiyada qaarkood akoonnadaas oo dhan waa la xayiray hay'adda NISA ayaa muddo dheer ku raad joogtay maadaama uu ahaa dhibaato weyn ummadda ku ahaa horjoogahan iyadoo bulshada Soomaaliyeed ee uu dhibaatada u geysan jiray ay si wadaninimo leh ula wadaageen hay'adaha amniga sawirkiisa macluumaadkiisa iyo dhaqdhaqaaqiisa alla mahadi howlgalkan guusha leh ayaa horseeday in bulshada Soomaaliyeed laga dulqaado khatartii halista ahayd ee uu ku hayay dadka Soomaaliyeed dilkan wuxuu ku soo beegmay xilli khawaarijta al-shabaab ay wajahayaan jabab iyo guuldarrooyin culus oo isdaba jooga kuwaasoo ay kala kulmeen ciidamada qaranka iyo kuwa dawlad goboleedyada gaar ahaan jababkii kaga dhacay Ceeldheer Galgaduud Wargaadhi Shabeellada Dhexe Kudhaa Jubbada Hoose iyo jabad godan oo shalay u dambeysay oo Shabeellada Dhexe iyo kuwii howlgalladii loogu magac daray duufaanta aamusan iyo seefta qarsoon ee Shabeellada Hoose ahaa duufaanta aamusan oo lagu qabtay 3 buundo Sabiid iyo Caanoole Beriire iyo Awdheegle iyo seefta qarsoon oo dhulka xeebta ah ee u dhaxeeya Marka iyo Xamar looga nadiifiyay bishii la soo dhaafay sidoo kale weerarada tooska ah ee lagu qaaday xarumahooda muhiimka ah ayaa dib weyn u geysay sida Jilib Saakow iyo Buula Fulay oo ciidamadu si toos ah uga degeen halkaas oo ay u haysteen in ay ku nabadgalayaan taasoo si weyn u wiiqday awoodooda una horseeday cabsi kala aaminbax iyo kalsooni darro ku dhex faaftay kooxda taasoo sababtay in sanadkan ay ku fashilmeen inay qabsan waayaan shirkoodii sanadlaha ahaa ee bisha Rajab bishii la soo dhaafay Shacbaan ba hadda ku jirna bishii Rajab shirkoodii sanadlaha kooxda khawaarijtu ay isugu imaan jirtay sababay inay qabsan waayaan kadib markii macaaqishoodii meelahoodii saldhigyada u ahayd oo kooxaha waa kuwa hogaamiya madaxdoodu ay ku gaban jireen markii la galay taasi shirkaas runtii wuxuu ahaa shir ay ku qorsheeyaan xaaladooda dhaqaale iyo qorshayaasha weerarada sanadka ay geysanayaan ama si
sida ay dhaqaalahooda u maareynayaan oo u aruurinayaan oo ganacsada iyo ummadda kaloo ay baadaan ay uga baadayaan shirkaas sanadkan waa sanadka keliya 18 sano ay jireen ee qabsan waayeen si xor u qabsan waayeen weliba meelaha ay ku qabsanayaanna waxay ahayd jilib iyo saako iyo meelihii fafogaa inay ku qabsan waayeen oo ciidamadu ay toos u tagayaan runtii waxaa kaloo guul ah oo ummadda Soomaaliyeed aan rabnaa inaan la wadaagno in sanadkii tagay 2025 uu ahaa sanad jab xoogan loo geystay khawaarijta iyadoo la dilay hogaamiyaashii ugu dhagarta badnaa qaybaha kala duwan ee khawaarijtu ay ka koobnaadeen dhisma ahaan kuwaasoo ugu horreeya bartamihii sanadkii 2025 waxaa lagu guulaystay in dhibkiisa ummadda laga wareejiyo horjooga cabdixakiin xuseen khaliif oo loo yaqaanay bataar muuse ama muxsin waxa uu ka mid ahaa horjoogayaashii u soo joogay ilaa asaaskii khawaarijta isagoo qaabilsanaa qaybta isku xirka kooxda iyo argagixisada kale caalamka bishii Juun waxaa la khaarajiyay horjooga Nuur Cabdi Rooble oo dadka gobolada dhexe aad ugu yaqaanaan nuunuula in la yiraahdo oo ahaa horjoogihii dhanka howlgelinta kadib howlgal ay si wada jir u fuliyeen ciidamada nabad sugidda Soomaaliya iyo saaxiibada caalamka oo ka dhacay ceel Hareeri ee gobolka Hiiraan bishii September waxaa la dilay Maxamed Cabdi Dhiblaawe Afrax oo sidoo kale ahaa magacyadiisa afgarashadu ay kala ahaayeen Khalid Deere Khalid Dacas Macallin Saciid Timajilic iyo Maxamed Sahal waxauna ka mid ahaa waxauna ahaa ninkii ka dambeeyay qaraxii ceelgaabta ee kolonyada madaxweynaha bishii September howlgal si gaar ah loo qorsheeyay ayaa oo iska kaashadeen ciidanka nabad sugidda iyo saaxiibada caalamku ayaa isna ka dhacay deegaanka Shaw ee gobolka Hiiraan halkaas oo lagu dilay horjoogihii lagu magacaabi jiray Cabdullaahi Xasan Cumar oo khawaarijta ay u yaqaaneen ay u xil saarteen amniyaadka Hirshabeelle horjoogaha Cusmaan oo ka tirsanaa qaybta maaliyadda oo lagu magacaabi jiray Qudaame Dheere iyo Cabdullatiif oo yaqaanay Tuutax oo ahaa madaxii iibka agabka qaraxyada ee ururka Al-Shabaab waxaana lagu dilay degmada Jilib bishii November waxaa la dilay Xasan Siidow Xuseen ayaa ahaa isaguna maskaxda abaabulka qaraxyada dhulka lagu soo aaso ee lagu dhibaateyn jiray dadka shacabka iyo gaadiidka isticmaala wadooyinka gobolka Shabeellada Hoose bishii December halkaan aan ku qabanay 10kii bishii December shir jaraa'id waxaa lagu dilay argagixiyihii weynaa injineer Cabdullaahi Cusmaan Maxamed oo magaciisa afgarashadu ahaa injineer Ismaaciil ninkaas faahfaahintiisu aad bay u dheereed wuxuuna ahaa ninka bedeli doonay loo diyaarinayay inuu bedelo hogaamiyaha kooxda khawaarijta marka ninka halista dagarqabo weyn oo amniyaadka iyo qaraxyada ku soo taqasay ayuu ahaa isla bishii December waxaa la soo afjaray horjoogihii Cabdikariin Maxamed Xirsi Qoorleex howlgal ka dhacay Jilib wuxuuna ninkan ka tirsanaa qaybta marin habaaminta ee khawaarijta ninkan meediyahay iyo propagandada kuwii qaabilsanaaba ah dawladda Soomaaliya iyadoo kaashanaysa saaxiibada caalamka ah iyo taageerada shacabka Soomaaliyeed waxaa ka go'an ciribtirka horjoogayaasha iyo maleeshiyaadka khawaarijta ee caadaystay baada boobka iyo falalka lidiga kuwa amniga iyo nolosha muwaadinka Soomaaliya fadlan muwaadin waa codsi halkan haddii aad hayso xog ama aad aragto wax khatar ku ah amniga macluumaadka la xiriira Al-Shabaab ama Daacish la wadaag hay'adaha amniga waxaan rabaa gabagabadii inaan ku soo gabagabeeyo inay soo dhowdahay oo ay soo socoto bishaarooyin waaweyn oo aan shacabka Soomaaliyeed la wadaagi doono maraan dheereen una soo bandhigi doono annagoo halkaan ka bogaadinayna ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada nabad sugidda iyo ciidamada qaranka iyo kuwa dawlad goboleedyada dhammaantood waxaa ka mid ahaa jawaabkii loo geystay kudhaa ayaa ka mid ahay oo wiigii la soo dhaafay jabad godane oo wiigan hadda dhacay sanadkan waxaan bogaadinaynaa ciidamadeena sharafta leh meel kastoo ay joogaan waxaan sidoo kale sheegaynaa in khawaarijta
kuwa waaweyn oo ka mid ah ay xiriirro soo samaynayaan ay rabaan in cafis loo fidiyo kadib markii ay u adkaysan waayeen meel ay ku nabad galaan u adkaysan waayeen dharbaaxooyinka soo gaaraya ay arkeen in dawladda Soomaaliya ay ka go'an tahay in meelna aan lagu nabadgelin meel lagu nabadgelayaana aysan jirin waa bogaadinaynaa xiriiradaas waxaanan u fidinaynaa oo leenahay madaxda dawladda Soomaaliya annagoo wakiilka ah cid allaaliya ciddii ka soo tagtay ama hogaamiyaashooda ha ahaadaan ama kuwa askarta ha ahaadaan askarta rayidka bishii waxay ciidamada dawladda isku soo dhiiba in ka badan 60 si billa ah taasi waxay muujinaysaa in laga soo firxanayo cid allaaliya ciddii soo dhiibays waxaan halkaan u marinaynaa inay shacabkooda inay dib ugu soo noqdaan dadkii iyo dawladdii ay caasiga ku ahaayeen inay joojiyaan marin walbaaba ciidamaduna ay furan yihiin inay soo dhaweeyaan kooxaha ka soo firxanaya naftoodana nabadgeliyaan qofkii isagoo isi soo dhiiba kuna soo wareejiyaan heedaha lagu talagalay waa soo gabagabaynayaa wasayaclamu aladiina dalamuu أي منقلب ينقلبون